ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho howlahay wadeen waxaan leenahay halaba laabaan meeshooda ha ka sii wadaan shacabkan waxaan leenahay yaalanay jabin dhacdadan waa dhacday anaga raali kama ahan shacabka raali kama laakiin waxaan leenahay qadar Allah ma sha facal hore aan ugu socono hawshan halaba laabo dadkii ku lug lahaa way wada xiran yihiin sharcigan la horkeena wuxuu sharciga qabaan la waafajina marka waxaan rabaa ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho si cad howlahooda ha u laba laabaan arabna shacabka Soomaaliyeed aan u sheegno in aan soo marnay dhammaan goobihii shilalka isdaba joog ah ay ka dhaceen si aan u muujino howlihii ammaanka ee socday inay caadi yihiin si aan u muujino in waxa dhacay nasiib darro ahaadaano ama masiibo qaran baa lagu tilmaamo laakiin tallaabooyin isxigta oo adag ay dawladdu qaado ay ka mid tahay dhammaan ciidamadii ku lug lahaa howlahaas ama shilkaas waa xirxiran yihiin baaritaan dhab ayaa lagu samayn doonaa wax alla wixii soo baxo natiijo ahna waa dawladdu waa fuli doontaa haddii ilaahay yidhaahdo howlihii socday ma saamayn doonta dhacdanaan ilaahay idinkiis waana sii xoogaysan doonaa insha allah deegaano fara badan oo Muqdisho aan ahayn ama Muqdisho hadda kor aan laga tagina waa ku sii fidi doonaa insha Allah haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabaa in aan u sheego ciidamada Soomaaliyeed oo noocyada ka kooban yihiin ba inay iyagu walaalo yihiin hal cadow ay leeyihiin hal ujeedo oo adeegan taas sababta aan wada socono wasiirka amniga iyo gudoomiyaha gobolka iyo taliyihii booliska iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo qaasatan saacadan ay tahay saqdaxa ay dhaaftay oo aan u taaganahay meelihii shilalku ka dhacay waxay tahay inaan kalsooni siino shacabka inaan muujino wada jirka dawladda ciidamada howlgal haday galaan mararka qaarkood waxa soo bixi kara cilado yaryar ciladaasna waxa lagu saaraa in tilmaamo cad laga baxsho waxana laga qabto arrinta dhacday maantay waa siday u sheegeen saaxiibaday waxa u xirxiran dad fara badan baaristiina waxaa mas'uulka ciidanka booliiska waxayna u soo gudbin doonaan sida ugu dhaqso badan iyada oo la horgeyn doono sharciga cid walba oo ku xadgudubtay sidoo kale waxaan u hambaleynayaa dhammaan ciidamadii howlgalka ka waday caasimadda iyo agagaarkeeda oo runtii qabtay shaqo aad u fiican lagu ammaani karo shacabka Soomaaliyeedna ay markhaati ka yihiin badbaadisana naf fara badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ku weyn lahaayeen howlgallada cadow ay ka wadeen caasimadda iyo dalka intiisa kaleba inta dhimateen ilaahu u naxariisaan leenahay inta dhaawacanteen ilaahay loo bogsiyo tan labaad howlgalka nabad sugidda amniga oo lagu waday bariyahan wax istaakul ma gelinayso hooshaas waa soconaysaa sidaas guddiga uu go'aan ku gaaray in si wada jira loo wada fuliyo qofka oo dhintay ee marxuumka ee meydka ah xurmo iyo karaamo ayuu mudan yahay si kastaba ha ahaadee haddana gaar ahaan markii ay yihiin ciidamada qalabka sida oo maanta dhiigooda noo hura ayagoo gaajo ku jira oo dhibaato noo hura oo qorraxda noo taagan markuu maanta amarka dhaca oo lagala xisaabtami doono cidii amarka ka dambeysay oo qofka ku geeriyooday in la karaameeyo oo la xurmeeyo sidaa darteed qof kasta oo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa marxuumka ha la karaameeyo oo masawirada meelaha la geliyo ha laga saaro ciidamada xasilinta caasimadda Hambalyo aan u dirayaa waana uga mahadcelinayaa sida sharafta leh iyo aan xirfadda leh iyo dishibiliinka leh oo ay hawsha u wadeen waa ku garab taagannahay